halkan waa xulashada wararka daawadayaal u diyaargarooba wararkeena maanta ee xulashada waa 5 Oktoobar 2020 waana Isniin qodobada wararkeena ugu waaweyn xulashadan waxaa qayb ka Soomaaliya iyo Eritrea oo mar kale saxiixday heshiis cusub muxuu ku saabsan yahay heshiiska madaxweyne Afwerqi iyo Farmaajo ay qalinka ku duugeen xog ku saabsan heshiiskaasi dowladda Soomaaliya wajh cusub la soo baxay iyo shacabka Muqdisho oo wajahaya dhagaxaan horle yaa bixiyay amarka lagu qaaday qaybo ka mid ah dhagaxaanta wadooyinka iyo wadooyin cusub oo hor loo ciidamada ammaanku ay sii xireen xiriirka Imaaraadka Carabta ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur cidda maalgelinaysa ololaha doorashada Cabdiraxmaan Cabdishakuur xasan sheekh oo farta ku fiiqay fashilka ku yimid dowladda madaxweyne Farmaajo 4 sano ugu dambeysay nin si naxariis darro ah u dilay haweeney uu qabay hase yeeshee kala tageen dhacdo murugo leh Muqdisho ka dhacday wararkii ugu dambeeyay dagaal ka dhacay Muqdisho ee faahfaahin laga helay qasaaraha ka dhashay dagaalkaasi muxuu Roble kala hadlayaa amiirka dalkaasi Kuwait iyo kulamada ra'iisul wasaaraha ee wadankaasi Kuwait iyo Azerbaijan oo wajahaysa iyo Algeria oo ka jawaabtay weerarkii Emmanuel Macron hogaamiyaha Faransiiska uu ku soo qaaday islaamka xaaladda Azerbaijan iyo waliba Algeria waan eegi doonaa qodobadaasi kuba kale yana qayb ka noqon doona saaxiibayaal wararkeena kamid noqon saaxiibada ku xiran channelkeena oo subscribe inoo dhig kambalkeena taabo si ay kugu soo dhacaan wararka iyo macluumaadada gaarka halkaan ku baahiyo أنكر مرة وربحنته وقرص محوك يهي هشيس كمدحوين فرماجي فورقي أي كوجارين إريتريا مدحولها جمهورية الصومالية محمد عبد الله فرماجي يا بوقش الرسمي كوجي قدل كاس إريتريا وحنا وضع هذا الجار على قاعدنا يدقي تدل كاس إريتريا سياسة فورقي أو صاحب الدويهين لبدا مدحوين يا كل مدة ديرته كوسعري سيد اللوح يشيل عسكاشي جود حياة دولتها الصومالية إريتريا سيدك الروح يكون شير إن دبلو عصب نسيك رشيس كلبدا الدولدود أسمره iyo Muqdisho ay gaareen sanadkii 2018 kaas oo qeexaya muhiimadda ay leedahay madax banaanida dhuleed siyaasadeed midnimo ee Soomaaliya iyo Eritrea madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Eritrea ayaa sidoo kale isla afgartay in dardargeliya diiradda la saaro dadaalada isdhexgalka gobolka wadamada Eritrea Soomaaliya iyo Ethiopia oo hadda saaxiibaha saddexdaasi dal wararka ayaa sidoo kale inta ku daraya in kulamadan labada dhinac ay sii socon doonaan waxaana booqashada madaxweyne Farmaajo ay qaadan doontaa muddo 2 cisho ah ilaa maanta uu joogi doono magaalada la yiraahdo Eritrea Asmara waa booqashadii saddexaad ee madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagayo magaalada Asmara ee caasimadda wadanka Eritrea tan iyo markii Soomaaliya xilkani loo doortay Soomaaliya Eritrea xiriir toos ah ma aysan yeelan marka laga reebo heshiiskan hadda madaxweyne Farmaajo ee Afwerqi heshiiskan isdhexgalka gobolka ayaana ka dhigaya mid xiriirka u dhaxeeya dowladaha Soomaaliya Eritrea iyo Ethiopia oo aad u xoogeysanayo marka loo eego sanadihii ugu dambeeyay wararkeena kale ayaan eegi doona Muqdisho aan ku soo laaban doona ayaa bixiyay amarka lagu qaaday qaar ka mid ah dhagaxaanta magaalada Muqdisho waxaa soo baxaya in dowladdu wajh cusub ay u wajahayso ammaanka caasimadda dowladda Soomaaliya xalay qaybo ka mid ah caasimadda Muqdisho waxay ka qaaday dhagaxaantii waaweyneed ee lagu xiray wadooyinka oo ay dhibaato kala duwan ay ku qabeen dadka shacabka goobaha dhagaxaanta laga qaaday ayaa waxaa ka mid ah isgoyska Tarabuunka Sheekh Cali Suufi Digfeer oo dhammaantoodba ka tirsan degmada Hodan ee gobolka Banaadir ee dhagaxaanta hal meel ka mid ah isgoyska Dawadaagta degmada Wadajir dowladda ayaa muddo hadda laga joogo dhowr sano ama 2 sano ka hor waxa ay sheegtay in amni darro awgeed wadooyinkana loo xiray dhagaxaantana loo jidcadyaashana loo xiray iyo dhagaxaanta qayb ka tahay xasiloonida amniga wararka ay warbaahinta qaarkood helaysa ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya qorsheynayso sidoo kale dhagaxaanta qaarkood ee hadda isgoysaas laga qaaday in isgoysyo cusub la dhigo oo la sii xiro waxaa soo baxaya macluumaadyo inaysan jirin wadooyin badan oo la qaaday hase wadooyinkana la furay in kuwa dowladda istiraatiijiyad ahaan ay ka damacsan tahay qorshayaasha xasilinta amniga dowladda wajh cusub u wajahaysa arintan dowladda Soomaaliya ayaa markii ay soo baxeen wararka sheegaya in xalay dhagaxaan ay ka qaaday qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho sayesha warar soo baxaya sheegaya in wadooyin kale cusub oo hor leh dowladdu ay sii xirtay qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalooyin wadooyinka dhagaxaanta laga qaaday ayaa waxay sheegayeen in goobta ay xirneed markii hore laga qaaday dhagaxaanta sayesha meel kale ka sii dhow lagu sii xiray dhagaxaanta dadka qaar warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in caqabad hor leh ay soo wajahayso isla markaana xaafadaha qaarkood ee Muqdisho dowladdu ay go'doon ay gelisay
dambeysay taasoo keeni karta xaalad kaloo aada u xun. isgoysyada dowladdu ay ka qaaday dhagaxaanta oo ka mid ah tarabuunka Sheekh Cali Suufi Digfer oo dhammaantoodba hodan ka tirsanay qaybo ka mid ah degmada Wadajir, hase yeeshee meelahaas waxaa la sheegay laga qaaday isla meelo kaloo aagaas ah in dhagaxaanta lagu xiray. xiriirka ka dhexeeya Cabdiraxmaan Cabdishakuur ee Imaaraadka Carabta ee cidda maalgelinaysa doorashada Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa markan si guud u eegi doona saaxiibayaal. siyaasiga mucaaradka ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hogaamiyaha xisbiga Wadajir oo wareysi siinaya TV-ga Dalsan ayaa ka hadlay arrimo la xiriira siyaasadda dalka, muranka iyo weliba waxyaabaha kale ee quseeya dhacdooyinka ee ka jira siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan arrinta dowladda Soomaaliya. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa su'aal geliyay madaxbannaanida Soomaaliya isagoo sheegay in halka laga xukumo dalka uu faraha ku godinta ajaanib badan dalka ay joogaan. waxa uu sheegay in goobaha muhiimka ee dalka laga maamulo ay gacanta ku hayaan ciidamo ajaanib oo amisom ah, isagoo tusaale u soo qaatay sida uu sheegay madaxtooyada, garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho, xarunta baarlamaanka, dekedda, wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay'adaha kale muhiimka ah ee awoodda dowladeedda. dhammaan ayuu sheegay inay gacanta ku hayaan kooxo ajaaniba, taasoo ka dhigan ayuu yidhi Cabdiraxmaan Cabdishakuur inaysan Soomaaliya weli u madax bannaaneen howlaheeda dowladnimo. wuxuu sheegay in mar hadiiba madaxtooyada ay joogaan ciidamo amisom ah ay tahay mid ayaan suurtagal ahayn. madax bannaanida Soomaaliya ayuu sheegay inay bilaaban doonto marka ciidanka iyo hay'adaha shisheeye ay ka baxaan dalka Soomaaliya. madax bannaanideeda shaki ayaa ka jira. askarta shisheeye ee furaha haya madaxtooyada ma jiro markaas dal madax bannaan oo Soomaaliya ah ayuu yidhi. maalintii askarta shisheeye ayaa ku sugan madaxtooyada iyo ilaha kale muhiimka ayuu raaciyay Cabdiraxmaan, taasoo shaki geliyay madax bannaanida Soomaaliya. waxyaabaha kale sida gaarka ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur wax laga weydiiyay waxaa ka mid ah arrinta madaxweyne Farmaajo iyo hadduu kala hadlay arrintan iyo inay kulmeen intuu xilka uu hayay. Cabdiraxmaan ayaa sheegay in guud ahaanba arrintaas ay tahay mid aan waxba ka jirin, aysan madaxweynaha Soomaaliya uusan la kulmin. sidoo kale Cabdiraxmaan ayaa wax laga weydiiyay sababaha uu la kulmay ra'iisul wasaaraha cusub in arrintaas loo arki doono arrin qabyaaladeysan maadaama ra'iisul wasaaraha uu nin ka soo jeedo deegaanada Galmudug. hase yeeshee Cabdiraxmaan ayaa su-aashaasi ka marmeeray isagoo jawaab badan toos uusan ka bixin, laakiin uu sheegay in ra'iisul wasaaraha uu siinayo talooyin ku saabsan siyaasadda xukuumaddiisa iyo weliba habka uu wajahayo doorashada Soomaaliya. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo dhinaca kale wax laga weydiiyay arrimaha la xiriira siyaasadda iyo iskaashiga arrimaha Carabta ayuu beeniyay inaysan jirin koox ama cid taageeraysa isaga. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa yidhi xiriir nagama dhexeeya Imaaraadka Carabta, mana maalgelin toosana hadda ama saaxiibtinimo Imaaraadka ah ma lihi. maxay tahay sababta maalgelin? aniga mi dowlad waxaan ahay nin shakhsi ah, waana shakhsi dowladeed, xiriir kalama dhexeyn karo ayuu jiri, mana jiro xiriir naga dhexeeya. sababtaas ayaana keenaysa isagoo sidoo kale meesha ka saaray inaysan jirin dalal Carabeed oo taageeraya ololihiisa doorashada. xasan sheekh maxamuud waxa uu farta ku fiiqay fashil ku yimid dowladda madaxweyne Farmaajo. madaxweynihii hore ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay qorshaha dowladda madaxweyne Farmaajo ee ahaa in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod, balse dowladdu ay ku guuldareysatay. waxa uu sheegay in dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo shaqadii loo igmaday aysan qaban. 4 sano ayuu sheegay in dalka ay kasoo qasaartay, taasoo la micnaa in haddii hadda dalka uu aaday doorasho dadban ay tahay 4 sano oo khasaara ay dowladda wajahayso. in meeshii 2016 aan joogno ayuu weli dalka u joogaa, taasoo muujinaysa in shaqo badan aan la sameynin, wax shaqaala laga qaban siyaasadda dalka ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud. madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo hadalka sii wata ayuu sheegay mar wareysi siinay TV-ga Somali Cable in dowladdu ay darray caabi ku tahay in doorasho 2016 dhacday in hadda 2021 il mar kale doorashadaasi lagu laabto, taas uu sheegay inay tahay fashil siyaasadeed oo dowladdu ay wajahayso. qaybaha dambe soo gaarnay nin dil arxan darro ah u geystay haweeney ay kala tageen. dhacdadan ayaa Muqdisho ka dhacday. faahfaahin ayaa laga helayaa nin hubeysan oo gelinkii dambe shalay xaafad ka mid ah degmada Wadajir ee gobolka Banaadir si bareera ugu dilay haweeney hore u qabay, hase yeeshee ay kala tageen. dilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay xaafadda Siliga Amerikaanka degmada Wadajir, waxaana ninka falkan geystay lagu magacaabo Cabdi Xasan Maxamed. dilkan haweeneyda ay wayna kala tageen wuxuu u adeegsaday toorey ama mindi. abaha dhalay marxuumka la dilay ayaa warbaahinta la hadlay, wuxuu sheegay in dilkaas uu yimid markii gabadhiisa lagu magacaabi jiray Zamzam Cabdiwaxiid Daahir ay iska diiday
in mar kale ay waa iska diiday inay dib u guursato cabdi xasan oo markii hore ay kala tageen sidoo kale aabaha cabdiraxmaan daahir geelle waxa uu sheegay in falkan uu yahay mid ka baxsan diinta islaamka sida loo dilay gabadhiisa isagoo dalbaday in ay dowladda Soomaaliya arintani baaritaan ku sameyso marka hore guriga ayuu soo galay waa loo diiday ninka inuu guriga soo galo xoog ayuu ku soo galo balse albaabka ayuu soo jabiyay ayuu yiri kadibna gabadhi afka ayay furatay haasayeeshee ninkii toore ayuu la dhacay ayuu sii raaciyay marxuumka ciidamo ka tirsan kuwa booliiska dowladda Soomaaliya oo goobta falka ka dhacay ayaa baaritaan sameeyay haasayeeshee ma jirto in la soo qabtay ninkan dambiilaha ah ee falkan geystay wararkii ugu dambeeyay isla Muqdisho in ku guri jirnay daawadayaal dagaal ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah caasimadda warar dheeraad ayaa ka soo baxay koox hubeysan oo weerar ku qaaday askar ka tirsan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya xilli habeen ay ku sugnaayeen qaybo ka mid ah degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir weerarkan oo saacado qaatay ayaa waxaa lagu dilay laba ka mid ah askarta ciidanka dowladda Soomaaliya halka kuwa kale lagu dhaawacay kadib markii la sheegay in ay isku rasaasayeen ciidankan dableedan hubeysan oo loo maleynay inay ka tirsan al-shabaab war ay ku qoreen baraha warkooda ku faafay internet waxay ku sheegeen mas'uuliyadda weerarkaasi sida gaarka halkaasi kaga dhacay in ayagu ay ka dambeeyeen waxay sidoo kale al-shabaab ay sheegeen in ay qori AK-47 ah ay la soo baxsadeen wali ma jirto warar ka soo baxay laamaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya ku saabsan weerarka khasaaraha geystay ay ka dhacay xalay degmada Hodan ee gobolka Banaadir warbixintan waa degmada Warta Nabadda gobolka Banaadir warbixintan ayaa ugu dambeysay wararkeeni maanta saaxiib yar waa nageeta si nabadgelyo